odayaal waxgarad dhalinyaro iyo aqoon-yahano reer Togdheer ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u magacaabay inuu hogaamiyo gobolka Togdheer. duqeytidan iyo waxgaradkani waxay ku bogaadiyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi habka iyo hanaanka maamul ee ilaa hadda uu wax u wado oo ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin waana kuwan iyagoo ka hadlaya ciidan reer oo dhan ka kooban waxa weeye inaanu ku soo dhaweyno Xamse Maxamed Cabdi magacaabista loo magacaabay gobolkan Burco inuu ka noqdo gudoomiye hambalyo iyo haddii alla ka dhigo waxaanu u direynaa iyo haddii alla ka dhigo soo dhaweyn si fiican ku soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa Burco Togdheer kala qolo maaha xukunkooda iyo xaajadooda iyo xaaladkoodana waa u siman tahay waxaanu hambalyeynaa gudoomiyaha loo soo bedelay gobolka Togdheer oo ahaa markii hore gudoomiyaha gobolka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo bedelay aad iyo aad u mahadsan yahay waa soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa soo dhawaan leenahay xafladda waxaanu isugu ku soo dhaweynaynaa barasaabka Xamse Maxamed Cabdi mar labaad loo agmaday inuu barasaab ka noqdo Burco waanu ku hambalyeynaa madaxweynaha dalka adduunka madaxweyne ah halkay ka dhalatay Soomaaliland waa taad soo halgantay waa taad ma garanaysa buuraha u gashay madaxweyne hiil iyo hoob waanu kula ag taaganahay inaanu wax kala qabanno ilaa insha Allah waxay noqon doontaa kii hogaamiya ee beel barwaaqo leh oo aad u wanaagsan kii uu hogaamin lahaa batay marna ka baqi mayno in la yidhaaho ninkii uu soo halgamay ee u qaday ee ma garanaysa buuraha u soo maray inuu ma garanaysa meel kale ku laalo wallahi kama taa nin Soomaaliland oo niyada ku hayaynaanu jiro waxa weeye madaxweyne si uu canbaad u wadaa loo soo magacaabay gobolka Burco waad maadsan tahay waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku hambalyeynaa odayaasha hore sheegeen waxaanu ku rajaynahay inaad magac iyo mafacba ku soo kordhiso insha Allah taas waa taa magacaabay mudane ku soo dhaweynaynaa waanu ku hambalyeynaa odayaasha hore sheegeen waxaanu ku rajaynahay inaad magac iyo mafacba ku soo kordhiso insha Allah taas waa taa magacaabay mudane Xamse Maxamed Cabdi oo gudoomiyihii gabeele markii hore ahaa waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow qalbi furan iyo gacmo furan iyo la furman ku soo dhaweynana inta kadib waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha gudoomiyahayga hore isaguna la bedelay waxaan leeyahay isaguna waa si sabateen si sharaf leh karaamo leh Xamse Maxamed Cabdi oo ah nin hawlkara taariikhduna ay sheegtay oo ku soo baxay gobolkii loo magacaabay markii madaxweynuhu maday waxaanu leenahay Xamse soo dhaw gamca furan baan ku soo dhaweynaa Xamse Maxamed Cabdi gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer oo ah gudoomiyihii hore ee gobolka Gabiley ahna nin dhalinyaro hawlkar ah ayay hor yaalaan hawlo badan oo gobolka Togdheer ku xeeran wax ka qabashadeeda iyo horumarinta Togdheerba Absa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland